qaar ka mid ah oday dhaqmeedyada golaha guurtida jaaliyadda soomaalida ee dalkan ingiriiska ayaa shir ku qabtay magaalada Manchester ee dalkan ingiriiska. shirkaasi oo la doonayo in lagu dhammaystiro doorashada maamulo loo sameeyo qurbo joogta jaaliyadda soomaalida ah ee gobolada ingiriiska. waxaana shirkaasi ka soo qayb galay qaar ka mid ah horjoogayaalka gobolada, waxaana ay ka tashadeen sidii loo sameyn lahaa maamulo ka kala socda gobolada dalkan ingiriiska ee jaaliyadda soomaalidu ay leedahay si loo mideeyo awoodda iyo midnimada soomaalida ah ee ku nool dalkan ingiriiska. waxaan maqli jirnay mar kastaba community meel community London communities, laakiin weligaan ma maqlin tada ama golaha guurtada ama golaha maxaan jira weli maan maqlin. waxaan maqli jirnay community oo kala badan. مثلا haddaan ka soo qabto Manchester waxay leedahay 36 maxay yiraahdeen community, laakiin wax tarkiisu amaleeyo iska yaryahay, yani dan Soomaali looma shaqeeyo. laakiin waxaan filaa maalintii aan isku nimaado aan ku heshiino inaan sameeyno jaaliyad Soomaali loo dhan from oo UK dhan ka dhaxeeyo. طبعا gobol kasta waxbay leedahay jaaliyad leedahay, laakiin markii ay midoobaan oo hal sameystaan waxa hubaanta inaan karoonaan doono dadkii naga soo horeeyay oo ku soo gurmay maxay oo soo jooga wadankan. jaaliyadda hadda waa soo badatay bariga hore jaaliyadda aad ay u yarad, laakiin hadda aad ay u soo badatay magaalooyin fara badan ay degan tahay oo Manchester ku heeraarsan. hadda jaaliyadda Bolton nala fadhido, jaaliyadda waxaa nala fadhiyo Sheffield, waxaa nala fadhiyo Liverpool oo dhammaantood maaragtay raba inay ka qayb qaataan Manchester weyn jaaliyadaha laga maaragtay sameynayo oo la rabo inay horumar badan sameeyaan. hadda kadibna aan rabno inaan maaragtay jaaliyadaha aan u naqano Google maaragtay hadii Ilaahay yiraahdo mustaqbalka. jaaliyadda London aan nala joogto oo hogaaminaya maaragtay gudoomiyaha jaaliyadaha UK Masar Cabdi Umar, waxaa nala jooga jaaliyadda Bristol, waxaa nala joogta Birmingham, ma ku Bolton waa sheegay. marka dib mala jaaliyadaha dhammaan waa joogaan hadda inta sida badan. marka insha Allah waxaan rajaynaynaa jaaliyadaha kale ee dhimanna inay insha Allah mustaqbalka fadhiyada dambe la qaban doono ay ka soo qayb galaan hadii Ilaahay yiraaho. wax badan baa la isku dayay sidii laga dhawaajiyay halkan in umbrella la sameeyo muxuu ahaa community Soomaalida leedahay xoogan oo ka kooban inta dalka UK joogto dhan, laakiin wali laguma guuleysan. laakiin hadda waxaan jecelnahay inaan ku guuleysano oo systemkii ku socoto ay muxuu ahaa ay guul dhalin doontaan rajaynayaan. saddex umurood baan isku soo qaadnay inay ka dhimayn hadda shaqo badan ay rabaan. waxa weeye Soomaalidu center male, meel wada isugu yimaadaan mala halkan magaaladan kuma laha. waa la raadin karaa, waqti bay qaadanaysaa oo ma haysano. waxa ka mid ah dadka malihinin oo ka soo gala localkan cadadka aan ku joognana waad ogtiin intay dhan yihiin 2,000 oo qof baa lagu noqdaa baarlamaanka halkan mana socotaan konsolka lagu noqdaa. hal nin waa soo saari laan, 2 nin baa is sharaxday, ayaguna mujtamaca ma dhimaan, Soomaaliduna uma wootayn. mid baaba soo dhawaada wax yar looga qaad konsolka 5 nin 6 baan geyn karnaa, nooma ay sugtooyin. dhibaatada saddexaad oo haysa waxa weeye dhalinyaro badan baa hadda naga xiran, anaga magaalada naga xiran. waxaan idin leeyahay shimbirtu waa noo haaday baal aan u yeelno, war yaanan baalalka ka rif, war baalka aanu dayno oo dhulka ha laga daayo, war dhulka ha laga daayo. anu waa jadbooday waa ooya, war dhulka ha laga daayo. maantay xasan sheekh maxamuud jawaari talsan cabdi shiirdoon yani wasiirka gaashaandhigga nin kastoo tallaabo qaada meeshuu taaga waa ka dhalaala. way garabku uga dhaganaa marka, war garabka u daaya inaan garabka leeyahay, war ka daaya garabka u daaya nimanka. laba shay ayaa dib noo dhigay. ninka aan jecelnahay qabiilka la dhaho walaalkeen baariga ah dib noo dhigay, iyo niman iskood rabo inay u shaqeystaan oo Soomaali aan shaqo ku lahayn. marka dadka oo iskood u shaqeysanayo waa laga guuleysan karaa, laakiin ninka aan jecelnahay abtiga in maadeertaan qabiilka ah si looga guuleysan lahaa la rabaa. jaaliyadaha xoogga leh sida Pakistan iska dhaafo wax kale, jaaliyadaha qaalan isna anaga waxaan leenahay Hindigan kan anaga waa isla weynaa, laakiin waxba ma nihin, we are nothing. wallahi aan loo dhawaan karin waxooda. والله waxay ku xisaabtamaan doorashada ku xisaabtamaan
ay qofka ay dooranayaan waxay ku xisaabta wax kasta ku xisaabtamaan ilaahay waxa aan wadno hadda kuwaasoo kale ha naga dhigo wasalaamu calaykum waraxmatullahi allow dulmigiyo dibaahan dabyanaga dulqaad allow daruufaha iyo daalkunaga haraa allow beelbeehasha iyo baaskunaga haraa allow dunidan ku daadan allow dunidan ka habsanay higsanaa qaniga iyo hoogaasku noogu jiray waxaa guuranaya gaalgaari faraasku yimi annana goonaye gebi baan ka taagnay mahadcelinta ballaaran kadib waxaan filayaa maanta dadka halkan fadhiyaahi marka la sheegayo gobollada iyo magaalooyinka la sheegayo ma joogaan dadkoodii oo dhan laakiin dadka halkan fadhiyaahi waa guddiyadii matalayay magaalooyinkaas oo maanta shir isugu yimid magaalada Manchester oo gogasha fidisay haddaan bini aadamku sabir lahayn waxyaalo badan ay ka xumaada ka halaaba marka waxaan jeclaan lahaa dowladdeena in la taageero waayo dowladdu waa dadkeeda haddayna inagu dhisin diasporahana inaga ugu xoog weyn dadka UK jaalida UK aad bay ugu xoog badan tahay diaspora waxaa fiican marka inaan awooddeena ku isticmaalno mid khayr ku jiro oo wanaagsan waxaan jeclahay sidoo walaalkii Cabdi Cumar kaga dhawaajiyay in loo gurmado dowladda waayo lahaanshaha ciidankaaga iyo booliiskaaga waxay ku kasbaysaa inay danahaaga ay ka shaqeeyaan hawshan ayaa waxa ay daba joogtaa markii dowladda Soomaaliya ay ku dhawaaqday gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ah ee ku nool dalkan Ingiriiska Cabdi Cumar waxaana la doonayaa in dhammaan gobollada iyo degmooyinka Soomaalidu ay ku nooshahay ay helaan maamulo midaysan si loo kulmiyo awoodda iyo dhaqaalaha iyo maskaxda Soomaalida ku nool dalkan Ingiriiska waxaana arrintan ay wax ka tari kartaa dadka ku nool dalkan Ingiriiska iyo sidii ay gacan kaga geysan lahaayeen dib u dhiska dalka iyo taageerada dowladda Soomaaliya Cabdirasaaq Socoto warbaahinta qaranka London